cudurka intaad iska ilaali kartid iska ilaalisid haddii kale cudurka waxa aad ka heli doonto ciqaabad aad ka heli doonto aad u farbadnaa doon. Assalaamu calaykum asxaabta saytii dhammaantiin waan salaamay dhammaan inta channelkii YouTube-kayda ku xiran waan salaamay insha Allah waxyaabo badan ayaan ka soo hadalnay maanta waxaan inaan ka hadalnaa jecelnahay haduu Ilaahay yiraaha cudurkan adduumaadka qabsaday oo la yiraahdo coronavirus waxa waaye waa dhibaato badan yahay waxa waaye waa cudur dilaa si marka loo fiiriyo hadan inta badan dadka adiga boqolkiiba 70 ay ka bogsanayeen alxamdulillah waxaan leenahay maanta cudurka coronavirus waxa waaye dadka inta badan taqaatiirto waxyaabo badan waa nala hadleen waxyaabo badan ay naga wacyi geliyeen waxyaabo badan ay noo sheegeen hadda aniga community ahaan aniga waxaan ku noolahay Kenya community ahaan waxaan ku sii noolnahay isli labada maan cudurka zaaid ay u soo kordhay marka dadweynaha ku nool isli waxaan u sheegayaa inay cudurka si taxadir dadku wala baara la yiri dadku inta saan wala sameeyna la yiri laakiin waxaan u sheegay dadka ku nool isli inay si taxadir leh ay u fiiriyaan cudurka iskaga jiraan waayo cudurkan hadda ku dhaca dhibaato waaye familkaada dhibaato ku keena dhibaato ku keena waayo inta iska ilaalisid cudurkaada bahasha ku xirnaado cudurka inta iska ilaali kartid iska ilaalisid haddii kale cudurka waxa aad ka heli doonto ciqaabad aad ka heli doonto aad u farbadnaa doon waayo haddii maanta tira wala cudurka ma dilaayo inta islaam aan ahay inta saaran ahay waxa waaye ilaahay qadarta ilaahay aaminsanahay niman qadarta ilaahay aaminsan ma jiro meeshan qof walba qadarta ilaahay aaminsan tahay kullu nafsin daaqatul mawt ilaahay subhanahu wa ta'ala yiri hadan markii la yiri sida bana cudurrada qaar markii imaadaan la yiraahdan muslimiinta kuma dhacay cudur kasto imaado lamaana dhig cudur kasto imaado islaamku ku dhacaya waayo waxa koomka ilaahay ku soo dejiyo adiga aad bari aad ka toos ilaahay ku yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala ku yiri adiga cudurkan kuuguma dhacay ma jirto cudur kasto imaado waa u nugulnahay hadii islaamanahay waayo cudur kasto imaado qofka bini'aadanka marka hadda waxaan sheegay dhamaantiin asxaabta in aad iska ilaalisaan cudurka sidiisa banaan waa halis waxa waaye anaga hadda community islam ku noolnahay alxamdulillah waxa waaye afka noo xiran cudur halis ah marka inaan iska ilaalina inta iska ilaali karna hadii dara aniga waxa waaye raaxste shaqada ma ahan hawleydan qabsanayo sidii waaye waxaan dawladdan waxa waaye saanay noo dhibaysaa anta xirayna leedahay waxaas ma jiraan waxa waaye wax naftaada laga taxadirayo dawladda annaka dhamay waxay naga tahay mas'uuliyad naga tahay waxa waaye dad mas'uulka meesha aad ku nooshahay say u talaalooyaan shacabka Soomaaliyeed waxaan halkaan ugu digayaa inay cudurka iska ilaaliyaan gacmaha iska dhaqaano intay taxadiraan waa toban caruur dhashay caruurtaada ma cudur ku dhacay guriga isbitaal waa nin wada karaantay wax aad ka faa'iido ma jirto waayo inaad cudurka iska ilaalisid inta iska ilaali kartid waayo hadda dara waraaniga saan weeye masaajidan ku dukarina inta ku dukana ilaahay subhanahu wa ta'ala masaajid inuu soo dukado annaga waan ku dukan hadda anaga taraawix meesha ma dukano soom waaye ma la dukado nin walba gurigiisa jooga gurigiisa isku inaga hadda Soomaaliya taraawix waa laga dukada wali saan hadda aniga ku oga inta badan waxa waaye dadkii waa mujtamac sidoo isku dhex socda maalin walba inta Soomaali marka laga soo sheego waan isku naxna waayo waxaan isku naxin waxay tahay waa dadkeena dhammaan nin qof kasto Soomaaliyeed ee dawladdu waxa ka saaran ka xilweyna idana ka saaran dawladda inay iska xilqaanto dadkaasi qasbiyan ay ula hadasho dawladda ay war u sheegto mooyee dadka sideeda banaan muhiimada in laga wada hadlaana muhiina shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu sheegay halkaan inay guriyahooda ay iska wacyi geliyaan inta Allah inta iska wacyi geli karaan hadda tiraadana maanta waxa waaye gurigeedan jooga wax gurigeeda meeshan doonaan ka aada meeshan doonaan ku soo galaya waxaas ma jiraan waa in la ilaaliyo la taxadira ilaahay subhanahu wa ta'ala dhinac noo dhaafi doono waxaas ilaahay keenay waaye waxaan anaka keensanay ma ahan marka waxa waaye shacabkeena Soomaaliyeed ama ameerta dawladda ka soo baxay in qaadatiin isku daya aad u hoggaansantiin dawladda wax kasto ka soo baxay dawladda adiga cadu kuuma aha kuma taqaan aqoonisna kuma lahan aniga hadda qof ay taqaan mara qof kale xayta gargaraysanayna ma jirto waa inaad adeka community aan dawladdiina isku xirnaatiin shacabkiina dawladdu wax amarka soo baxa aad u hoggaansantiin isku day waa haddaad adiga maanta dhimatid walaasha dhimata hooyada duq waayeel guriga joogta laga yaabo adigoo nin ciyaar inaad meelaha iska aadidood meelaha cudurka soo qaadad cadda dhan oo u keentaa macquul marka walaalayaal waxa la ilaali inta la ilaali kara waxa waa insha Allah waa ka taxadiro doona insha Allah duulaayira ilaahay subhanahu wa ta'ala na garab jiro marka nimiyo waa laga taxadiro dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaa xaafadda isla ku nool inay cudurkan zaad iska galaan hadii cudurkan iska ilaali waayaan dhibaato weyn waayo wallahi waxad maanta aad bas in isla imaadaay wiilkeeda hooyada una isku naxaysaa waxa waaye inta iska ilaali kartiin iska ilaaliyo insha Allah waxaan iga codsanayaa videos u daawateen insha Allah saad igu soo biirteen insha Allah waxaan dawladda yiraaha
inaad youtube kii soo booqato intaana insha Allah meesha ayaan ugu bixinaa duulaha yiraaha khayr badan. Assalaamu calaykum.